الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والله إلهي درس جعل ملو دونك تجوكتن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنتم حاروا إن إذن كي شيء ظلمي دبعت ذوليه هي بالذات قرابة مركي للظلمناية بالذات صدق مركي للظلمناية قبلها قاركود هو ناكسين لكن إلهي أمر كيس إسكما ما أركي كرانينك هو يدي الصوت وقال الله إله هذا وهذين وياك وفهم الله قبل قاركود إني صدق ذو إيسن أركي كنا سبب من غير وحلا يسوي شيء كيمياء تربية ما وفهم واحد laakiin qisadeena marka taasi ku saabsan tahay qisada marka waxaan ka warinayo waa qofkii ku dhacday waay gabar yar ahayd maama u timid oo hal wiil kaliya leh waxay tiri hooyo wiilaan leeyahay wiilkaasna kaligiisa leeyahay wax kale ma leeyahay habiis soo yar iga dhintay waa soo kori jaamaco ka soo baxay waxaan rabaa marka gabar fiican oo raadinay maxay kula tahay waxay tiri okay markii loo sheegay waxay tiri waaye ma cindi maana I have no problem okay waay waxay tiri hal shardi aan qabaa hadaa ogolaatid iishaak hadaa diididna hadaba iishaak xoraatahay maxaa waa shardiga waxay tiri aniga wiilkan kaliya ka leeyahay waxaan rabaa inaan idin la dago noloshiina ku jiro laakiin qolgiisan rabaa inaan idin la dago wiilkan kaliya ka qabaa nolosha asiga nafteedana asaan soo si marka meeshan iska dag ballan waxaan kugu qaaday inaan life-ka aan soo dhaxgalin laakiin meel gooni aan dago guriga dhexdiisa waxay tiri haduu ilaahay noo qadiro wiilkaas inaan isguursan hooyadii oo kala tahay madaxana ii saaran tahay wiilkii gabadha waa isguursadeen gabadha ballanteedii waday maalmaha kamid marka waxa soo ziyaaratay hooyadeed iyo walaasheeda ay soo dhaweysay sodohdina way soo dhaweysay fiican loo soo dhaweey maxaa dhacay marka markii baxayeen hooyadeedii sodohda markii baxayeen ay waxay ku dhaheen hooyadeed dhehaysa hooy ma adaa guriga iska leh bis shaqaalaha ka tahay siiri kilmooyinka xun fiir dhibaatada ilaada gabadha waxay tiri may hooy gurigana iska leh maxaa may waxa u maleeyay waxa uu tasarufaysay dhaqankaaga wuxuu ahaa qof shaqaalo sodohdana waxay u ekeed dhaqankeeda qof guriga leh gabadha guriga ku soo noqoto waxay tiri shaytaanka bada iyo waswas madax igu wareeri waxaan go'aansaday marka maamadaas inaan bagooyaba waxaan bilaabay maamada inuu wajiga u bedelo hooy waxay tiri maxaa ku dhacay baxbo markaas hooyadii waxay u tiri hooy mehel maanta ballantii oo iga qaaday war ballanka qaaday ma jirto almuhim hooyadii waxay tiri marka waa yahay wax dhib ma lahan ilaaha joogo hal waxaan ka codsanaa ani adi dhibaatadana dhaxmarto ninkaaga oo wiilkayga ha u sheegin because ma rabin wali murugana u timaado kabadhin waa jaaniskii rabtay Soomaa haydir uma sheegay waxa dhacay marka maamadii gahraa ku dhacay way iscuntay si fiican loo ma dhaqaaleyneen iidan nafsiina aan isbitaal la geeyay dhakhtarka markuu fiiriyo wiilkeeda wala hadlo xir hooyada miyaha hooyada dhibaato haystay fiiri wiilka marka hooyadiisu la hadlo dhibaato ma jirto may wax dhibaato ma jirto maalma kadib haddana hooyadii guriga isbitaalka lagu celiyay dhakhtarkii wuu fiiriyay wuxuu yiri hadda ka horna waa kula hadlay haddana waa kula hadlayay hooyada dhibaato haysato hooyadu la hadmay dhibaato ma haysato ilaahay markiisa hooyadii murugtii dhibaatadii hooyadu way geeriyootay sidii ku dhimatay ninkii uu la hadlay dhakhtarkii markaa haddana wuxuu yiri hadda ka horna waa kula hadlay waxa uu maleena hooyada ana baari hooyada wax jiro ma qabto geerida ilaahay keeno laakiin hooyada waxa jira gaar dhibaato jirto adi ma dhibtay ma xaaska ma dhibtay maya ninkii hadalku uu dhibsaday xaaskiisu wuxuu yiri adi hooyada wax ma idin dhaxmarin may si wax u jiraan waxay hooyada wax ku sheegtay may waxay meeshii kiiskiidu isaga xiray ninkii xoog uu joogay tiilaha oo timid waa dhintay yaa soo heeray marka gabadhii oo sodohda dhibaatada ku sameysay caruurteeda weynaadeen afar wiil leeyahay jaamacay ka wada baxeen wiilashu waxay marka gabadha noo raadiyay hooyadu xibran mar gabadh inay raadiso maalintii wiilkeeda koobaad igu yeeray tiri gabar ii raadi aan waxaan soo xasuustay sodohdii subhanallah fiir shaytaan soo ku hilmaamsiina intaas dhan sodohdii aan soo xasuustay laakiin waxaan dhahay sodohdii oo kale miskiin oo kale ma noqonayo waa u taga waxay tiri gabar ka soo xigtay shardiyan kula gala xawaaye nin wiilkii hadaa guursatid ana maamada guriga ana noqonaa because dambiga soo galan oga heelada maamada guriga aniga noqonaa hayaa lagu yiri wali soo dhaweeyay ilaaha markiisa wiilashii qaar safar aaday iyo waxay noqdeen wiilna waa ka geeriyooday hal wiil oo soo heeray marka oo la deganay wiilkii xaaskiisa iyo maamadii isku dhacay maamadu waxa lagu yiri ma taqaana kilma 20 sano ka hor tiriya lagu yiri waana wareerisay noloshaadan waa soo qaadatay an ka raaxaysano maamadii inay fariisatay ay xitro wallahi waxaan ogaa dulmigu inuu dhibaato badan yahay
laakiin weligii isma dhehaynin hadal aan dhahay copy and paste lagu sameeyay isma dhehaynin laakiin way ku dhacday tiri maamadii markii dhibaatadii 20 sano ka hor sameysay waxa ka guday ama ka aartay wiil gabadha wiilkeeda oo guursid waa xanaagtay waxay tiri maya wallahi inaan ka yeelayna saan wiilkeeda soo galay wiilkeeda waxay tiri gabadha xaaska saani u sameeysanayso hooyadii cabaadayso oo wiilkeeda u dacwoonayso xaaskiisa u yeertay waxay tiri hebel inaan kula hadlaan private ee soo bax waa asraaceen qolkii la galeen hooyadii waxay tiri waa sugaya in wiilkan sugo inuu soo baxo wiilkii soo baxa soo bedelanba wuxuu yiri hooyo maqal gurigan anaga iska leh hooyata waa ku ixtiraamayna adigana ixtiraam guriga joog laakiin buuqii dhibaatada naga dhaafo gurigan gabadha ana iska leh hooyadii waxay tiri markaas aan ba ooyeybo hadal gabadhay dheesma ka ooyin hadalku wiilkii uu yiraan ka ooyay tiri dhibaatada ugu sameeyay markaas aan ogaanay tiri dulmiga inuu dulumaad yahay waxaan sudohdii ku sameeyay ina maanta liga aare leeytani hadaan ogaa lahaay tiri sudohdii amaanta raali gelin lahaa laakiin waa dhimatay taas adduunyo way aakhira maxaa u yaala ma ogtahay rasuul sallallahu alayhi wasallam sheegay dulmiga wuxuu ilaahay cuquubada soo dedejiyo ayuu kamid yahay adduunyo lagu ciqaabay aakhiran ay ku taalo marka gabdhaha walaalahay qiimaha badan waxaan rabaa inaan dhaho ninkan quruxda badan oo nimanka ah ka soo dooratay hooya soo korisay hooyo ayaa kaadida ka soo dhaqday saxarada ka soo dhaqday caloosheeda ka soo baxay hooyadaas marka hadaa wax kale ku ixtiraam weysi ninkaas oo aad jeceshahay caruurtaada aabahooda ku dhashay ee ixtiraam khayr Allah ku siiyay gabdhaha walaalahay marka waxaan rabaa sodohda ha fiicnaata ama ha xumaat ma dhahoy sodohooyin kulli waa fiican ma dhahoy qaar xun wajisa annaga qaar fiican iyo qaar xun u jiraan sodohdan ibn aadam waay mid fiican iyo mid xun way jirtaa laakiin hooyada oo kale hadaa u ixtiraamtid wallahi way ku ixtiraamaysaa hooyada oo kale hadaa u ixtiraamtid hatta hadii ka qaldanta qalbiga ilaaha gacanta uu ku soo jeedina marka waxaan rabaa sodohda waa hooyada oo kale ninka jeceshiid hooyadiisa waaye caruurtaada ayeeyadooda waaye lawla Allah hadii hooyadaas ahaa lahayn wiilkana kuma joogi lahayn caruurtan jilbaha ku saarana kuma dhala lahayn ixtiraam hooyada khayr Allah ku sii hooyada oo kale waaye ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weydiina qulubta hooyooyinka iyo gabdhaha sodohdu yihiin inuu isku soo aadiyo jazaakumullahu khayran barakallahu fiikum sodohooyinkan waxaan leeyahay gabdhaha waa gabdhihiin oo kale u naxariista idinkana gabdhaha waxaa leeyahay hooyooyinka hooyadiin oo kale u naxariista wiilashana waxaan leeyahay hooyada iyo sodohda adiga u dhaxaysay qof fiican noqo oo isokeen malab isu mari jazaakumullahu khayran barakallahu fiikum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.